bogga internetka qarannews.com kala soco Wandako iyo maasadiisii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo ah Ahmed Maxamed Nuur Abu Wandako oo ah ninkii bilaabay markii hore silsiladii silaya gabaydi markii gabaygi uu silsilad noqday ayaan aniguna dib ugu soo noqday anigoo oo horta gabaygi hore ee leeydiiday jawaabtiisii sida yaani ku soo galaya wuxuu yiri marka hore gudoonshow madaxweyne guudow wuxuu yiri guushaadi maandhow gabayga aad ka tirisay anna gaar ahaantay iigu tiri gudoono kunud oo arkeeyo xasan gaarufeeyo gadmashiyo istaagtaag gabaygay waxyeeshaha gawdgawdin ee qayb gaarsi dadweynaha waa gabay duruuf iyo waqti lagu gorfeeyay xilligiisan gaarka ah isna yaanu geesmarin marka aad gudoonshow iga saartay gacantaan anna hoosu guuxo waxaan gaar isugu idhi sayidkii gadaashi gabay laysu dhiibaagayigeenna kama dhicin lama filayo galabtana ma godbaa madbadin baa hawshu way gundheertee muxuu uga gun leeyahay koroo waxay garaadkaygii baa yidhi guriga bay doqonay ninka miyaanad garanayn waa siyaasi guuno kun xil oon la garanoo dadban oo guraacanoo gurran buu sameeyaa allahayow garaadkiiyo gacmihiisu badana cidduu gaar waxula rabo meel lagu gufeeyiyo magod buu u waayaa sida gabankan caanka ah isagoon dastuur gelin baarlamaanna loo geyn geyigoo dhan maamula agaasimahan gaarka ah loo xidhay garaadada ka guweyn wasiirada sawkan galabta kugu daray shiifka iyo guruubkii gaarka looga baqan jiray xil gadaalka dhiibaan gacalow u qaato guul baaban joogaa amarkaagi way galay anna hawshii maan gabin gucladiiyo dadaalkii waxay gooyey kabihii joornaalkan guunka waa heen u geeyo xuuto soo galaabixi website aan la garanayn meel la gaari maaye hadwanaagsan aan gabin gudbintiiyo dadaalkee gudaha iyo dabaddaba marka uu warkii galay qurbatooggii wadagaad ballada dalkeennana giddigood anaa maray sida adiga calow dadku way u guuxeen sacabkay garaaceen qosolkii la googoo dadku guunye maaho intay gabay dhagaystaan geeda doonan maaye falanqayntii loo gudub bageeska soo eeg muran fooda leeskeli silaan yaa gabyo yiri mar haddii la wada galay gabaygii silsilad noqoy aniguna garoonkiyo u ballaarshay gogashii gacmo furan ku qaabilay khadarow gabyaagii giddi way u furan tahay gooligii iyo difaac iyo weerar kubaha soo galo hal rida gantaalaha garab weynta jilib culus gadcadaagu hays helo guruubkeenna kacayaa goobta la isku barayaa gaariye iyo hadraawi yahay haw geynin odayada waa silsila waa giraangir socotee ninba geesta uu rabo ha ka gala ciyaaraha waa silsilad gundheero nin garaacay jarayo gudban dheereeran weeyo nin ugu la baray baa hadba geesu raraye afaray la guuxiyo erey u geeyow kuma geli kara sida goobta isku ceebay maantana ku soo galay gabac loogu magac daray silaan yamu garan garoo waa jawaabtii gabaygiisi laga yiri waan idin gadleho kursiga hawgandooda maxaan gaajo ku qabay aawadaa u goongolay hadba geedi ka soo dhacay waa godku ka qaday goolmoonidiisi iyo baahidan uu gudbinaya garanoo waxay tahay haddii guula igu simay madaxtooye gelideed walee geeri mooye kama guuro weeyaan nin qabiila gaabana cidduu ula gol leeyahay gadabirsi weeye silaan yamuu garan samaroonta geestani ola gaaban maahee waa reer gu weyn oo garabkaaga yaallo way kula gudboonyiin silaanyo muu garan gudub oo kasii soco wuxuu yidhi guhaadow goobtaba ma soo dhigan inuu guusha iga helo taariikhnimaan gelin guuna aan ka weynahay aan garaada dheerahay farta kuu ku godaya garowa riyaale yarashadu da' maahee qalbigiyo garaadkaba inuu guula bixiyo cidduu doono gelin karo silaan yamuu garan shaqaaqadii galbeedka ee reeruu goob la wadayaal isku yara gegeyseen shicibkii la gowracay gam in layska siiyaa gefkan loo sameeyey dadkan gacal wadaagta inaan dhiig ka gobo odhan riyaalow guntadayo waa kii soo gunaanaday gunud oo ku soo noqo ninkan galabta haystana kuwa hoodle geesta garo oo kalshaali baarlamaanka gudihii khudbadiisii gaabnayd muusanow galgalashada ma gabane baleersii guutooyin qaranka ah iyagana galuu yidhi waa tusaale gaabane labadaa isgarab yaal iyomaa gu weyno iyomaa garaadale jawaabtana guhaadow uga gudub dadweynaha gabaygeenni sii raac geyigaan xoreeyiyo horta geesi baan ahay midba gaar oo kala qaab jiiryaale fulaydii muu gelin jihaadkee horta geesi baa tahay nin go'aan le baa tahay waxaad tahay guddoonshii esta ugu gudheeraa 6 saniyo gusuur baad gadwadeenahaydo lama gaadhin meel laba halkuu geesigii tuur 6 bilood ku soo galay garoo eedheeedhkii galabtii heshiiskii cadowgeennu gaadheen innagoo gumowniyo gobanimo isbaaltiil dib u guura baa tidhi markay kugu giiriiseen geesiyadii hubaysnaa waxaad tidhi angooste gadaal iga yara dhiga garoo eedheeedhkii asanamo gasiin iyo garoo hilib lo'aad
iyo kalluun goosanayso istoodhadu gingimayin galabtaad u timi bay wax waliba go'eenoo waa tii diin gurguurtiyo gacalowka shiidiyo goortaan ma siiyo halaq afka gelinay weeyaan guriyow abaarii weli kaama guurina way ku garab socdaanoo maantana geddaadii miyaan gaajo loo dhiman gudub oo ka sii soco geddii qaaxa fahanoo waa abaabulgelin iyo guubaabin beeniyo gebgeb iyo iswaalwaal garanaya ka sii soco kii guunya haystaan hadba garabka taabtaa wasiir gaara siiyaa isagaa ku goohaye siilaanya muu garan xilka ruuxii laga gaday guushuu sugaayey maanta guunyadiisoo laga saara gacantiyo in la geeyo booskii gartu inay mid un tahay sawtan galabta uu yidhi ninba gelin ha fuulo gaawaha ha buuxsado kii kalaa gelaayee gadaal ha uga soo baxo gashi baan la liitaa geyi loo shaqeeyey iyo maxaa shicibka iga galay ballanqaadka aan galay geedaha ka fara badan isagaa ku goohaye geedaha ka fara badan isagaa ku goohaye siilaanya muu garan ballanqaad wuxuu galay dadku inay guntanayeen diiwaanka geliyeen galabtay ka waayaan dadku intay gadoodaan goobtu inay taxriir noqon siilaanyo muu garan kidugood haweenkii garabkaaga taagnaa gurmad kuugu wada yimi kuu horseeday guulaha guunye iyo naftoodiyo codka kugu gargaaray garabkaaga taagnaa saddex quraad ka garatay maadiga abaalguda kidigoodba ololii wixii hadal lagaa guray daliilya ku hayso nin cod goobayaa teegef u qaadan maynee kulligood ka soo gudub guushaadi maandhow waa taad galgalatayaad reeraha giriistee goollaaftan hadashaye iyana goboradeedii ka gudnoonsa dowlaha wuxuu yidhi ood weyne gobolka cod wixii ka soo go'ay isagoo wanka u galay saadaashii guushiyo roog iyo gurbaan helay geli weyday odaygii gurdan raacis mooyee gacan qabasho uma arag wiyaal hore wixii dhacay hadalkiiyo gantaalii ayaa gocashadoodii gaarka loogu xaman jiray soo gufaaca kiciso inuu yidhi guhaadow dhab libaax markaan gubay garanuug ma moodaa guuxiisii maqalaye siilaanya muu garan libaax guudka shaas kuli inkastoo la gaasiro dabin iyo god lagu rido ama guuto xoog lihigoonyaha ka dhaafaan ama gumucyo lala helo siilaanya muu garan gucumaalihii aar inuu go'aha joogtay garanuug ma noqon karo wuu isyara gamaarsho indhuhu isgeliyaad garanuugta moodaye allow muu iskala guro ama galabta muuciya go'a aad ka carartide didigoodba reer hawd cabdigaadhi maayo waxba kama gediyayee ku joog garab markaadii iyo geesinimadii ruuxii garaadkiiyo cilmigiisu gaadhiyo giddigood dadweynuhu xilka wou gudboon yahay isagaase kala guray waa gedduu u sheegaye daar juflaangaab abid guunyo loo diran waa halkay ku geeyaan siilaanya muu garan in ayuubku gaar yahay gobta reer isaaq yahay ducayaalka guud yahay mudnaan gaara leeyahay bariga iyo galbeedkaba godobli'i ku mari karo siilaanya muu garan giddigood ayuubkani galabtii codayntii inay garab istaageen gudaha iyo debaddaba gabdhihii iyo raggooduba inay garab istaageen guunyo iyo karaamiyo codka ugu gargaareen siilaanya muu garan isagoo gob gees maray aanu goyn cadkoodii abaalkoodii aan gudin taasina gefay tahay inuu gabay u soo diro ayuub haybta guudka asacad muuse inuu galo ninka garanayaan ahay gef labaad inay tahay siilaanya muu garan akishiyo gurgurihiiyo madigaankan garab yaal ma wuxuu ku gees maray maxay reer gadiile isla kala gurgurayaan ma go'aankii hore iyo sacad muuse gelidii saayidkii idin go'ay isgaadhsiiyadiisii yuu garmooday odaygii ciidagala guweyniyo giddi ciise muusena siilaanya muu garan labadaasi gacalow inay xusbiyo gaara leeyiin goobta uu fadhiya iyo kursiga u gol leeyiin siilaanya muu garan waa gedduu u sheegaye midhmidhkaa gunnaynta ah adaa kula gariirayaa gacmaa ku hoorsaday aan ku garaabe waxaad guul ka joogtaa gaboose iyo xaashar qaranti ka gadato intuu sare u guuriyo cawil gaad lahaa buu wadnihii isgooyo ina xaashi waan gubay haddaan geeyey meeshii iyaduna gef may noqon miisaaniyadan gaarkaa markuu golaha soo dhigay giddigood ansixiyeen sawkii guhaadow gargariir bilaabae waxaan golaha soo dhigay waa waxaan gacmaha iyo gunti iigu jirinoo garoo mala'awaalihi ila baadi goobay gargaara buuri gobollada dhammaantood badhisaabadaa gudmala way gabayaan gaboosow u wada yeedh madaxweyne goortaa adna gaar wax ugu sheeg loo yeelgaduu rabay marmarsinya gaabane wuxuu galab dhoweyd yidhi giddigiinba madaxdaay hawshaydan gaarka ah haddaan layla wadagelin dadkan sii go'aayee aan ku gubay cashuuraha dambe haddaa ka daysaan idinkaay gabayo xilka waan gelbinayaa sawkii gaboosana shiidkii iyo guhaaday reeruhu u geysteen aargoosigeedii aqalladii la gubay iyo reer gacan libaax buu isna guudka kala koray iyagaa isgubay iyo xilbay goobayeen iyo
aqal quri ma gubanina cooshadayna geeyeen sawkii guhaadow waxa xunaan la garanaya halka guudka kaga shubay nabadan gadayniya ammaankii la giijiyo gayigii aroosna sawkan soo gabaabsiyey ma guurguurtay nabadii guutooyin raran baa gudbay oo dhex marayee maxog baa la gooba gaadhkii iyo bilayskii kalsoonida na gelin jiray iyagaa gabanayo saldhigii iyo godkoodii qori loola soo galay sawti gumuca lala dhacay goblan tale adduunyo qaboosana afxumadii iyo caydan wuxuu ku gabayaa xilka aanu gudan iyo godolooladiisuu ku gufee isleeyahay guuxan ururadu markay gebagaboobaan qaboose iyo xaashina ha galaan magaalada gidigood wasiiradii gale hawlahoodii udubtiina geedkiiyo laga saar garoonka ma ku gaajo beesheen guruubkii haraaday ee ku gariiray tumbada sawtanaan galaan iyo gororba uga soo dhicin gayigaba dhammaantii sawkan gaadhay oonkii malowgii gahayri yidhi ma mogoolo geedkuu guudkiisa taabtaa gediisi ma noqoteen